waxaan rabaa inaan idinkaga taariikheeyo taariikh yar oo Karamardho iyo sheekadeeda Karamardho waxaa la iiga sheegay markii la qabsanayay oo dawladda Soomaaliya markay weeraraysaa la iiga sheekay waxaa la dhahay Allah u naxariisto Karamardho waxay ku taalaa jigjigo gadaasheedana maleynaya jigjigo gadaasheeda buur ku taalo waaye waxaa saarnaan jiray raadeer ciidanka Itoobiya raadeera u saarnaa maalintii raadeerkaas la daminayo 3 taangiya la soo qaaday buurta hoostooda la keenay 3 taangiyo buurta hoostooda la keenay 3 taangi mid kamida waxaa wado aniga qof ehel ii ah oo qaraabo ii ah baa wado oo buurta hoosteeda la soo galay waxaa u imaaday 3 taangi oo buurta hoosteeda ku jirto oo dagaalka Itoobiya iyo waxaan ka hadlaa 1977 sama garno 3 taangi oo buurta hoosteeda la geliyay oo dagaalka uu socdo yaa waxaa u imaaday nin la dhaho General Ahmed Warsame Allah u naxariisto uu dhintaa dartan General Ahmed Warsame wuxuu markaas u haystaa ciidanka maxaa la dhahaa madaafiicda haga madaafiicda oo lagu garaaco baalki 3 taangi oo meesha ku jirto iyo wuxuu u imaaday marka oo meeshii buurta hoosteeda joogto isaga oo lugeynayo oo ciidamadii ka soo tagay oo lug ah iyo u imaaday soo marka isaga wuxuu haystaa madaafiicda maxaa la dhahaa madaafiicda muxuu ahaa qaybta madaafiicda xukuma adiga oo markaas ciidanka dagaalka galayo 77 wuxuu haystaa qaybta madaafiicda oo loogu talagalay in lagu garaaco wax 3 taangi oo buurta hoosteeda taalay oo mid kamida idin dhahay aniga qof ehel ii ah baa wado taangigaas sama garno yu dushiisu istaagay wuxuu ku fiiriyay toorabeen oo qaatay wuxuu ku fiiriyay Karamardho marka maxaa ku yaalo bahalkan wareegayo oo raadeerka ah wuxuu qabtaa marka raadeerkan diyaaradda ka soo kacaysa Berbero iyo diyaaradda ka soo kacaysa magaalada Muqdisho sama garno soo marka raadeerka maalinta la damin doono way oo la duqeyn doono Ahmed Warsame goobta madaafiicdu haystaa madaafiicda goobta oo lagu garaaco bahalkii way wuxuu u dalbaday madaafiicda marka way ka dambeeyaan taangiyaasha Karamardho la raba marka in la duqeeyo buurta raadeerka saaran wuxuu yiraahday hal madfac soo rid waxa ii sheekeynaa qofkii taangiga la saaran yahay is joogay oo waday wuxuu yiraahday madfac soo rid uu dhahay madfici markuu soo riday wuxuu kaga dhacay dhinaca bidixda haddana madfac kale soo rid uu dhahay wuxuu kaga dhacay oo dhahay dhanka oo midigta haddana madfac kale soo rid uu dhahay waxa la dalbayaa madaafiicdi goobta horey uu ku dhacay midkii dambana gadaal ku dhacay markii madaafiicdi uu ku afarta gees uga riday iyo wuxuu dhahay hal mar hala dab saaru dhahay Karamardho hal mar hala dab saaray maalintaas waxaa la gubay raadeerkii ku yeelay Karamardho fiirsaya Karamardho raadeerkii ku yeelay maalintaas la gubay ninka gubaayo ciidanka wata markaas waxa waay Allah u naxariisto Ahmed Warsame hadda uu dhintay oo maleynaya general dawladda Soomaaliya kamid ahaa wuxuu yiraahdo qofkii iiga sheekeynay markii uu wuxuu dhahay raadeerkii aan gubnay hal mar aan wada sacbin u dhahay waa Karamardhada idinkaga sheekeenay oo idin leeyahay ninka la dhaho Ahmed Abi waxaan ka taagaynaa taalooyin oo geesiyaasha amxaarada aanu sameeynaa soo marka waxaan rabaa in aan idin sheego dad badan oo waxaan arkay ku hayo madaxweynaha Soomaaliya Karamardho kama hadlin Karamardho ma yeelin Karamardho Abi Ahmed sidaanu yeelay saanu yeelay horta dad badan oo Facebook ku jiraan wax taariikhdii ay ka yaqaanaan mala dagaalkii 77 la galay ehelku ma leheen inaysan ka soo wada dagaalamin dadkooda laga yaaba in badan oo kamidana dadka Facebook nagula jido waxay qaraabo leeyihiin maxaa la dhahaa jabhadihii wadanka burburiyay sida SSDF sida SNM sida SBM sida UNC sida maxaa la jiray jabhadihii wadanka burburiyeen iyo qaarkood qaraabo leeyihiin soo marka adiga shaleeto uu adeerka ama aabaha ama in adeerka uu jabhadii wadankan burburisay ahaa inuu marka ka sheekeeyo Karamardho iyo dawladnimo iyo muxuu ahaa dadkii u soo dagaalamay waa laga fiican yahay waxaan ka jeclaan lahayn in anaga nooga dambeysaan anaga ehelkeena ku dhinteen anaga ehelkiina ay ahaayeen kuwii dalka u dagaalamay kuwii Karamardho duqeynayeen kuwii Karamardho taangiga ku garaacay kuwa waliba nolosha lagu waayay hadda kuwa qaraabana la ehelkeena nolosha lagu waayay lama arkin dib dambe looma arkin sama garno marka waxaan arkay marka kuwa dawladda Soomaaliya marka ku bahalkiyeenay oo ku hayo muxuu ahaa madaxweynaha kama hadlin Karamardho arintii uu ka hadlay Abi Ahmed si kale yaa loogu jawaabay waa idin sheegaya qaabka looga jawaabay in badan oo idinka kamida oo uu kamid yahay suldaanka Soomaaliya oo nin iska yara xanaaqsana oo saaxiibana aan nahay waa u sheegaya waxa dhacday maalin hore jaamacadda Carabta in la isugu imaado shir degdega oo looga arinsanayay muxuu ahaa biyaha Nile-ka oo ay Itoobiya ay daamka u xiratay meesha biyo xireenka ah oo ay ka laga hadlay dawladaha jaamacadaha Carabta waxay go'aan ku gaareen hadii Itoobiya ay xirto oo biyahaas ka xirto muxuu ahaa Masar ama Egypt
إني لا لصفتو مصر أو قرب لو نقضو دولة الصومالية ولا عذيي وحي عذيسي مصر إن لا لصفتو في رسية وحي إذين شيء قاعد يجست دولة الصومالية وحي عذيسي حدي إثيوبيا أي حرتوبيا مرانكا أو أي مصر كحرتو وبيجا نايل إني دولة الصومالية أي قرب استاكت مصر جوابتي عن سيني أبي أحمد تاسيهات سامينا قرنو si diblomaasiyasana loo siiyay isaga kaara mar dhow ka hadlay ama xaaradii meesha ku dhimatay iyo muxuu ahaa nimankii dargigii iyo mingista xayla maryan filimka halkaas uu aaday laakiin dawladda Soomaaliya si kale iyo uga jawaabtay codeyntii loo codeeyay Masar iyo Ethiopia hadii ay isku qabsadaan biyo xireenkaas in anaga Soomaali aan taageeri doono Masar ogaaw Masar abaal horena waa noo yeelay abaalka hore noo yeelay muxuu yahay waagi dagaalkii 77 aan galnay taangiyadii lagu galay oo 45 ka iyo 55 ka waxa keenay dalka Soomaaliya waxay ahaayeen Masar ma fahanti wadanka Masar ya keenay anaga marka abaal aan isku leenahay mar walba Masar iyo anaga waxa waaye abaal gooniya loona hadda ka hor markii Masar la go'doomiyay oo carabta inteeda kala go'doomisay oo ay noqotay Imaaraad iyo Qatar iyo Bahrain iyo Sacuudiga iyo Yemen iyo Libiya oo Masar xiriirka loo jaray oo la dhahay waxay la xiriirtay Syria aan balki Israa'iil anaga Soomaali hadaan nahay waa diidnay Masar oo maanan jarin xiriirka sababta aan ugu jariyaa garanay anaga Masar dagaalkii 77 markaan galnay wayna taageertay wayna la jirsatay sameeyna garno waliba taageero waxay noo muujisay aan caadi ahayn oo ay dagaalka nala gashay sameeyna soo marka maalin hore markii jaamacadda carabta laga codeeyay oo Masar loo codeynay oo Masar hadii dagaalkan ay la gashay Ethiopia oo ay gasho in la safanaya anaga Soomaali anaga Ethiopia maanta tan isxulufaysi naga dhaxeeya ayagii Eritrea maanta ogtahay Soomaaliya iyo Eritrea iyo Ethiopia isxulufaysi ka dhaxeeya isxulufaysiga noocaas aha oo naga dhaxeeyay haddana Masar iyo Ethiopia marka isqabtaan waxaan go'aan ku gaarnay inaan aan la safano Masar soo marka jawaabti Abi Ahmed la siiyay oo arintii kaara mardho oo idinkaga soo sheekay kaara mardho raadeerkii ku yaala sidii loo dumiyay iyo sidii loo garaacay iyo cidii garaacday iyo markii la garaacay taasa looga jawaabay marka waxaan rabaa inaan idin sheego sheekada kaara mardho maalin hore lagu meereysanay inaa isaga gudubtaan oo ogaataan halkaas inaan kula xifaaltanay halkaas marka waxaan uga tagayaa sheekadii Ethiopia iyo kaara mardho iyo Egypt iyo sida isugu jawaabnay waxa ku saartay arinta balad xaawo maalin hore live aan soo gal waxa idinku dhahay subaxii la weeraray nimanka balad xaawo joogeen laba mid ay noqon doontaa ama Hebel Janan ama Indikore ninka la dhahayo oo wasiirka amniga Jubbaland aha ama asagoo nool baa la keeni doona ama asagoo dhinta la keeni doona nasiib darro qofku tiisa markii wax ka hareen ma dhimanayo laakiin si waad ogeedeen sidii loo galay hubkii in laga soo furtay in meeshii laga ceyriyay in dhalinyaradii qayb laga laayay in kuwa badan ka soo baxeen hadeertaana waa idin sheegaya hadii janan iyo ciidamada la joogo in badan oo kamid ah ka soo goosatay ay joogi waayaan malakumoodkooda un baahayo ayagoo dhinteen un baad arki doontaa oo janan la leeyahay Allah u naxariisto waa ku daayay sama garno Kenya waxa ay rabto waxa waaye leverage inay halkaas waxay rabtaa ay ku yeelato maxaa la dhahaa baalkii af Soomaaliga ku hadal af Ingiriis kuma hadlaaniyo iyo af Carabi aan af Soomaali aan ku hadlaayo waa xanaaqsantahay saaxiibkii baalkii sama garno inay waxay rabtaa ay xoogaa ay ku yeelato inay naga soo gasho meesha la dhahay balad xaawo iyo baalkii iyo Jubbaland iyo Jinni dawladda Soomaaliya uma joojinaysa sidaan shir aan ku hayo ciidamo badanna waa la geeyay ciidamadii gorgor la dhahaayay kuwii commandos la dhahaayay kuwii haram cadka la dhahaayay ciidamo badan la isugu geeyay intaas waxa u dheer qabiilka degan meesha la dhaho muxuu ahaa balad xaawo iyo gobolka Gedo waxay isku dhaarsadeen inay dawladda ay taageeraan oo ay la saftaan oo hub iyo dhaqaale iyo maxaa la dhahaa xoolo intaba ay keenaan maalin kasta waxaan daawanaa Facebook aan ka daawanaa iyo maxaa la dhahaa iyo muxuu ahaa TV-ga dawladda ayada oo la wado muxuu ahaa xoolo oo jifa loo keenay maanta jifa hebela waxay keentay 4 neef oo geel ah maanta jifa hebela waxay keentay 6 neef oo geel ah iyo siliidoodii iyo maxaa la dhahaa iyo briiskoodii maanta waxa la keenay 5 neef oo geel ah waxa keentay jifa hebel dawladda marka iyo dadka degan oo shacabka ah oo degan gobolka maxaa la dhahaa Gedo oo todobada degmo ah waxay isku dhaarsadeen in dawladda taageeraan dawladana aysan waxba kala harin soo marka dad badan baa ku habsaamay oo ku hayaan dawladdan muxuu ahaa inta waa laga soo weeraraa inta waa laga soo galaya waxaas ma jirto dawladda danta ay ka leedahayna waxa waaye inay xuduudda soo xirto customkina sameeyso hadda magaalada la dhaho Doolow oo ku taala xuduudda Ethiopia iyo Soomaaliya customkeedii waa la sameeyay wuu shaqeeyaa wax ka halaysan ma lahan Ethiopia wax dhibaato ay ku haysan male Kenya dhibaatada ee wada waxa waaye inay badda laga gorgortameerta gorgortan waaye warna la gorgortama hadii nina la gorgortamay samaano calooshooda u shaqeystayaashan
daba dhilifyadan jaajuusyadan baan idinku wadaynaa oo idinku kicinaynaa kuwaana meelay gaarsiinayaan Kenya ma lahan Kenyana waa la is yaqaanayo dad dagaalama ma ahan Kenya dhalinyaro anagana la eeg oo dugsi sare ka soo baxday jaamacada ka soo baxday baa askarta qorato si ay biil uga helaan oo reerahooda uga biishaan inay dhintaanna ma rabaan samaan kirno in badan aan baabuur isla raacnay dhalinyaradooda askarta oo isla qaarkood isla shaqeyn jirnay oo aan garanaya ma rabaan cunugan dugsi sare ka soo baxay nolol buu garanaya ma ahan jabhad ma ku soo baranin duur wax waa nin soo wax bartay fiiri askarta Kenya wuxuu ku hadlaa Ingiriis af Swahili iyo luqadooda u gaarka ah inta badan dadka Kenyaanka ah waxa waaye muxuu ahaa qabiilo oo kala luqad duwan waay ninka dhalinyarada ah oo askariga ah ama booliis ah ama military ah wuxuu ku hadlayaa luqadda Ingiriiska luqadda Swahiliga iyo luqadda oo ugoonida ama kukuyaha ahaato atireereedooda ahaato ama mukamba ahaato ama af Soomaali ha ahaato ama bahalki ahaato soo marka waxa ka garanaysaa cunugan dhalinyarada Kenyaanka ah ma ahan nin jabhad ah oo ku soo koray muxuu ahaa bahalki ah soo mana doonayaan laakiin dadkan hadda laga horkeen inay iska celiyaan rabaan waa dawladda Soomaaliya oo dhalinyaro ay soo tababartay iyo dad dalka u dhasheen waayeen oo dhulkooda difaacanay soo marka arinta balad xaawo taasan ka dhahaaya soo marka balad xaawo cidnaha u cabsanin mana la qabsanaayo mana la weeraraayo cidna waxba kama tareeso taas ay aaminsanahay waxa ku soo haray shirka Garowe hadaa maqashaan shimbireya u heesa ma maqli jirtay shimbireya u heesa oo hees wanaagsan ku heesa oo si fiican u heesa ya filinkaas waay hadaa maqasho shirka Garowe waa shirki hore oo lagu qabtay magaalada Muqdisho oo la dhahayo Mudulood iyo shirki lagu qabtay Nairobi oo la dhahayo Kablalax iyo shirki lagu qabtay muxuu xamar dhexdeeda oo la dhahayo Reer Sade ay shir hore oo lagu qabtay qabiilada markii oo shir isugu imaanayaan leewaay wax dawladda Soomaaliya ay ka qaadayaan iyo wax ay u geysanayaan iyo wax ay ka tari karaan oo Ilaahay awoortan ma jirto shirki hore oo la qabtay wax dawladda Soomaaliya ka tareen cid garanaysa ma garanay wax ay ka tareen male iyagu baa isku imaado shaahay wada cabaan cuntay cunaan waa iska kala tagaan wax ay taraan ma laha because of waxan waa dawlad maamul leh kala dambeyn leh beesha caalamka aqoonsan yahay dhaqaale haysato wax walba haysato way samaan kirno soo marka waxa garanaysaa marka hadii lagu dhaho inta lagu shiraaya waa un beel isku tagtay oo shirayso tii hadda xamar ku shirtay cidna waxba kama qaadin tii ku shirtay magaalada Nairobi waa la ogaa ninka la dhaho muxuu ahaa Deniba uu ka qayb galay wuxuu yiraahday meeshaan aan u baxsanaynaa Kenya markii aan burburnay soo marka waxay ku tusaysaa inaanan waxba lagu kala qaadinin bahalkii shirarka la qabanayo soo marka dadka shirka Garowe maxaa ka soo bixi doono maxaa noqon doona san yeelayo waa shimbirayo u heesa haday shimbirahaas heesaan haday hees fiican qaadaan waa la soo dhaweynaya haday hees fiican qaadi waayaan cid dhageysanaysa malaha kuwii hore kale noqonayaan muxuu dhahay saaxiibkay Suldaanka Soomaaliya wacdi ma maqashay Abi Ahmed nin diinta u gafay inuu wasiir u magacaabay ma saaxiibo ma maqleen deeq muxuu dhahay shirka Puntland waxa uu ah waan ognahay ma ana walan mise cadan ayaa laga heesaya exactly shirka Garowe ka dhacayo waxa waaye beela isku imaanayo iyagiyaa isla wada hadli doonaan kuwa waxa arkay wasiirada aaday iyo waxaas ka hadlayo wasiirada 4.5 oo isku soo doortaa qof walba qabiilkiisa ku imaada haduu reerkanaga shirkoodan ka qayb galaya oo waliba dawladdu u soo xansanaya oo dawladda maxaa la jiray waan uga soo warqabaya wax ka dhacay is good waa fiican tahay soo marka maxaa leeyahay waxba shirka Garowe waxba kama soo baxayaan waxba iska matarayaan waxaan rabaa marka inaan idinka dabageeyo maadaama taageerayaasha dawladda aan kamid ahay waliba kuwa rug cadaaga ah oo hadda tan ka fadhiistay ciyaarta aan kamid ahay dawladda Soomaaliya maxay la soo shirtigi doontaa dawladda Soomaaliya wax badan oo idinka qarsoon ay idin sheegaya maalintii la gaaro July 1 dawladda Soomaaliya wax inaan maqlin oo inaan arkin oo inaan xataa dhagihiina ku soo dhici karin iyo sameyn doonta hadii Ilaahay idmo wax xataa qofka markii looga sheekeenayo aan macquul ma ahan u dhahayo maalinta la gaaro July 1 maalinta oo xornimada aan qaadanay dawladda Soomaaliya waxay la soo shirtigi doonto oo ay la soo istaagi doonto garoomada maalintaas ya wax adiga aqligaada ka weyn noqon doonta laakiin qaybo kamid waa idin sheegaya laakiin qaybo badan oo kamidana waa sir u qarsoon iyada ay ogtahay sida maqlay laakiin inta aan maqlay oo laga haayo oo banaanka la maraayo baa idin sheegaya dawladda Soomaaliya waxay furi doontaa iskuulo tirada ka badan oo ay u furi doonto meel kasta oo la xoreeyay iyo kuwa aan la xoreenin iyo deegaanadooda dawladda Soomaaliya waxay furi doontaa MCHyo isbitaalo ay furi doontaa oo ay furi doontaa maalinta July dawladda Soomaaliya waxay furi doontaa garoomo diyaaradeed oo hor leh yaa waxa la dhigi doonaa la dhagax dhigi doonaa dawladda Soomaaliya waxay furi doontaa oo ay dhagax dhigi doontaa garoomada kubadda cagta kuwa hore waa jirtaan waa wada ogtihiin gaalkacyo waa loo sameeyay maxaa la dhahaa meesha la dhaho Dhuusamareeb waa loo sameeyay Caabud Waaq waa loo sameeyay magaalada Banaadir waa laga wadaa Baydhabo waa loo sameeyay kuwaas waa kuwii aan isla ogeyn laakiin garoomo kale oo hor leh oo cusub oo kubadda cagta ay sameyn doontaa waxa kale aan maqlay ceelal biyo oo tirada ka badan ayaa la qodi doonaa hadii Ilaahay idmo waxa aan kale aan maqlay waxa waaye wadooyin cusub oo hor leh
yaa la samayn doonaa oo dowladda Soomaaliya ay soo wadaa inay samayn doonto sama garno marka waxa way wax in badan oonan maanta ogaan doontaan hadii Ilaahay aad maalinta la gaaro July koodeeda oo dad badan ay ku baraarugi doonaan waxaan kaloo maqlay ay dowladda la soo shirtigi doontaa inay soo diyaarsanayso maxaa la dhahaa diyaaradii Somali Airline oo ay la imaan doonto in la keeno loo badinaayo markii 1 July sabaa garno waxaa kaloo aan maqlay dowladda waxa u diyaarsan ciidanka badda oo maalintaas la soo dadka la tusi doono ay arki doonaan waxaa kaloo u diyaarsan ciidanka cirka oo maalintaas la soo bandhigi doono sabaa garno waxaa kaloo u diyaarsan ciidamo commandos oo hore aan loo arkin inay dowladda keeni doonto soo marka ma la tirin karo macallimiin la qoraaya oo tirada ka batay jirto naasas maxaa la dhahaa dadka dhaqaatiirta oo ka shaqeyn doono wax aniga aan idin tirin kara maahan laakiin sida aan maqlay waxa waaye ilaa 500 oo mashruuc 500 oo mashruuc oo cusub maalintaas laga qaadaya gacanta sama garno maalintaas maxaa soo bandhigaya kuwa cusubna waa la furi doonaa oo daawan doontaan oo ay kamid yihiin muxuu ahaa garoonka kubadda cagta stadium Muqdisho oo caan ah oo hadda la wado muxuu ahaa meeshii maktabadii maxaa la dhahaa nas nurses isku mid leh waa nurses no sama garno marka mashruucyada dawladda ee soo wadato oo ay sameyn doonto July koodeeda qof kasta oo Soomaali ah sida aan maqlay madaxu gacanta saari doonaa war waxaan xagee ka imaadeen xagee ka dhaceen ala dhihi doonaa Soomaali garno marka waxaan rajaynayaa waa wada sugeynaa waa u wada diyaar garoobi doonaa hadduu Rabbi idmo Soomaali garno marka laakiin dawlad ku dhaanto ama soo martay waa arki doontaan oo ma jiri doonto dawlad muxuu ahaa wax qabadkeeda la mid noqon doonto maalinta la gaaro July koodeeda waxa ay soo wado dawladda nabad iyo nolol oo ay furi doonto عقلي قفك بين آذن كا وكبدنا عندنا وحديه دونا وروحا معقول ما هالدولة كل واحد أنت أنا وضع ولا لسايو أنت أنا قرانو كبدو عقل لسايو أنت أنا MC هجوا لسمينايو أنت أنا محوها معلمين أول قري أنت أنا عيدا أنت لقى كياني أنت أنا بهالك وحصرنا الدولة ولسه شرتيجي دونتا لكن وحارجينا يا مالنتاس وحي كدم بيا إن أنا السوشيال ميديا اللي وقرك دوني عدا بقى معارضة سيد الدقيق جيسو ذاك صابين قرنا ديق جوسنينا صاحبنا واي أو معها إن بالكي سيجو معارض مرنا معارض بس قلنا مرنا وكسبحة صابر كم حائدين شيء جايا نيدي نوحفي عن وشيء ما أنت جولاي كود ذي لجارو أو لود بالدي جايا ما أنت حرني ماذا عن قاعدنا وحال يقول هاي شن بقول أو مشروع كبدا يدولد الصومالي فريدونتا نينك أذيك يودينا دينت الصومالي دينتي ولا جعفيه وحبوا قمن أو نقول يا ملك لعكت 3 إلى 2 مليون أو نقول هايين محل ده والي بانكي وحاب هي نرويج لعك لو نقول هايين إلى 2 مليون أو أفريكان أو بنكي هرمارين أفريكان ديفلوبمنتيجا وحاب هي إنجليزكا والدم بدن لعكت وذوي عفير سما قرنو إنه وعدي وارنتا وحا أشيء سببته ولي بين مشيين بليز تراست هيم ولي بين مشيين نيو واجي دولة ده كعص بماركينو أو أي تبرت لا إد ماركينو إنا بين شيء جروا مالنا إله نقع فيه سما قرنا واجي دولة تبر لعنت هاد مقرنة سا أو فرماجي غيرك لي هاين يأفرقوا أنا إلى ميدا مقرنة أو لديه جري أن دولة تبر ملهان دولة سان ملهان دولة واجي سوا مالنا إنا بين إنا شيء جروا مالنا واسورت قال قف بين آذن وبين كدارن كرمجرو سما قرنا لكن سي أن بنت أو نف لوجو بدبادينا sometimes ولا أقول يلا دولة مركب معاملنا سا بنت أو لوجو بدبادينا دل أو السن أو دمي سما كرنا مركب لكن تن ظاهر على سو كرئيو نيك الله ده بالك محوها صاحبك دقبله وكلا مش يعني تسمعها سما مركب واحد أنيجا ربو حواي إنا إذين شيء أو إذا لسه عدسيو دولة الصومالي وحبي لسه شرتيجي دونتا واحد لسه شرتيجي دونتا جولاي first هذا وأول جوجنا هدو إله إدمو وأول أركي دونا ومحل ده وإسلسو جوجنا وحقبتك حدرتان أي وحقبتنا يا هل مجاله ده برا وكلية مجاله ده برا وكلية وحلو قبت عد لو قبت ماله وحلو دي سجران وحلو دي MCH أو أي حاسك مدحوينها مروذ كواد أي ديكستي سما قرنو أو أي سميسي إن وحكى له سمي بالك halkan man gaariga ka arkay mugti سميس أو قرية في عندها ku jirtaa بالكنا كجرا أنت وحكى آخرنا okay niyo waxaan u baahnay Soomaali maanta reporti inaan soo qaado check soo qaado waxa la yiraahdo laga hor xiray dadan dhigisan dadka inama khalaani adiga inuu xagga san waxaartu fi saayay waxa dhigay laba taayir baan dhigaa laba taayir inta mesh مش لعبة meel yurqo laba taayir yar yar
هاي قدر كافر يا قدر كسكش أربابك أربابك كافر قدر هاي حاك سكش هاي مركا صاحبي على وحاوة يسوق بالنيا مشانا أي ماذا لول جيك معنا ذا أربابك كفران مشانا دولة الشقة مركز الإسكاس في الاستديو محددة إني شقوين كلا جناحسي كلا شقة سمع قرنا شقة أنت الدولة كده عادة مركنا يعني سوف دي سينا إيمان الدكان ماذا عنك شقينا شقوين كدولة ده مركنا وأكل السعودة ملا أربابك يحير مركي قشطة مش مركا محل يا صاحبي علو إن دق جسود إيد السلام لايف كان وكاد مينا يا هاي أربابك يحير مركا سواق قشطة تاير هذا معنا دقيس لايف كاكاديمينا سي وشقيسته مع صحه واشقيسنا شقه ku jira waa kanaabe waa dukaana gadaya waana balki waana maxaa la jiri waana dadkana waa u sheekeenooyay shaqadii kale caadigeed waa soo xirmatay coronavirus soo xiray wax walba waa isku balki marka maxaa leeyahay saaxiibo muxuu ahaa dawladda Soomaaliya marka maxay imareysanayaa waa iga qasanayaa dawladda Soomaaliya waxa marka ay soo wado wax yar ma ahan marka waxaan rajeynayaa haddii ilaahay idmo topic muxuu yahay ebo an topic waxa laga hadlayaa wax qabadka ay dawladda soo wada July 1st-geeda kooda markino markii oo muxuu ahaa July 1st-geeda markii loo dabaaldegayo dawladda waxay soo bandhigi doontaa haddii ilaahay idmo aan ka hadlayaa topic noocaas aan ka hadlaa kuwa kalena ka soo hadlay laakiin kaas hadda u dambeeya topic-kaas u dambeeyay marka saaxiibayaalo waxa idin leeyahay haddii ilaahay idmo dawladda wax badan ay soo wadaa wax qabadka dawladda waxaan ka hadlayaa haddeertaan hal magaalo waxa loo qabtay دولة الصومالي وقفكي يقانو إيسو قوري كرا هل مقالو انت لو قبت دولة قبتها ديجيتو إيسو شيكتا مقالة دا براوي وحالو ديسي MCH وحالو حديكتي مروذة مدحوينها وحالو ديسي اسكول وحالو حديكي وزيرو إيو نمان أو أمباشي توراه وحالو فوري قرون دياردات وسدح مدبا مدكا كلا كدرينيا وسدح نورش بين آذن كي كتير سنتاي قرون دياردات MCH اسبيتال إيو اسكول دولدان دولدي كهرسي او انتاس قبتي او هل مقال او قبتي يا هدا هيس انت iigu soo qor sabaa garno waa ku sheegaya waxaan u sheegaynaa marka dadka maamul goboleedyada dawladda ka soo horjeeda ma loo qabtaa intaas ma jiddo boowe exactly boowe ma jiddo sabaa garno ma dawlad qabatay intaas ma jirto ma soo marin dalkan hal magaalo oo baraawa la dhahayo in garoon laga furay in isbitaal MCH loo dhagax dhigay in iskuul loo dhagax dhigay oo loo furay ma jirto dawlad soo sameysay oo xamar oo ka baxsan sama garno soo marka dawladdan wax qabadkeeda qof walba uu ogyahay weena la socotaa laakiin waxa la isku haysto waxa waaye dadka qaar kood baa waxay wax kala ku qufulan wax aan loo joogin markino marka maxaa la saaxiibo dawladdan wax qabad haday noqoto wax way qabatay qaladaad waa iska jiri karaa hadda waxyaalaha aan ku haysta anigoo kale waxa kamida waniyo qaadkan ma laga joojiyo qaadkan dawladda Kenya ma laga joojiyo madaxweynaha dhan walba waa loola hadlay si walba waa loola sheegay dawladda wax walba waa lagu akhriyay waa diidantahay waa naga diidantahay hadda marka waxaan bilaabaynaa campaign mudaharaad in magaalada laga qaban qaabiyo Muqdisho oo dawladda lagu kiciyo oo la tuso dawladda inaysan dadka raali ka ahayn qaadka سمعنا قاتك وحوك ميديا هاي وحيالها إن حنوننا هذا تان كورونا فيروس لقى قاضي كرو جمعها لوجو حرحرة جمعها لوجو ضوضوبة جمعها لوجو صوص سمية دلكن ولا سوق لنا يا دولة الصومالية أنت حكمت كليها كجوجسو مقالة عابد واقع أيضا حكمته مقالة لوس مريب أيضا حكمته عذاذ أيضا حكمته قال كعي قيب كميد أيضا حكمته جوهر أيضا حكمته بلدوين أيضا حكمته بيدبا أيضا حكمته إن محالتها مركو إيو براوي إيو شلامبود إيو محالتها بالكي أفقوي مقالوين بدن الدولة الفدرالية حكمتها حكي جوجي سكواس kuwa kale markino xal to siindaha dadka xal dhaho maamul goboleedyada way diideen qaadka inay joojiyaan magaalada Kismaayo way diideen inay joogto gida oo kale todobada degmo waa laga joojin karaa samagar soo markii dawladda ma garanayo wax ku qasbaayo inay diido inuu muxuu ahaa qaadka la joojiyo laakiin waxaan u fahamay
dawladda Soomaaliya waxay isku diyaysaa inay diblomaasnimo iyo waxaas ciyaarto oo ay isku maaweeliso laakiin meesha bahasha waa soo dhaaftay alamtara had sama kirno maadaama xanuunkan viruska hadda lagu sheegay Kenya oo qof laga helay Ethiopia qof laga helay in la joojiyo waay in la dhaho war saaxiibayaalow maxaa la dhahaa xanuuna la idinka helay inta xanuunkaas bal uu socdo qaadkan aan joojino dawladda Kenya way garaawsanaysaa dadka cuna way garaawsanayaan kuwa laga soo gado way garaawsanayaan laakiin dawladda Soomaaliya dhagaha istiraysa dhaga la'aan iska dhigtay dhagaha noo xirtay soo marka هذا السوشيال ميديا هدو إلى المكامبين كواكا بلابينا مدحوينها إيريس الوزارة هدي أي مقلي كريوايان فريمها لو صمرنا السوشيال ميديا أو أي أركي كريوايان وحي أركي دونان أيضو كعذون سما قرنو أو أي أركي ويلا كل مايان شاكي كومجرو سما قرنو أنا قم الدولة إن الدولة دينا كهريمانو أو كهريمانو والدولة نمحوها بالكي لكن الدولة هدينا دقيسين ويدو أو أي تاغيرياش دقيسين ويدو وحي وشي غايان أو قادك ودنك كجوجي انت حنون كان وكجرو أي دقيسين ويدو وحا إيمانا يمركة دنبك كعذون إني لكلا جبو أو أي تاجرياش دتك أي كلا جبان أو قارن مدحوينا إيرز الوزراء كهران قارن إدهان دولة السيد السحدة يدو حموده وإيمان سا ما مركي لكلا جبانا دي النبضي نلول دن أقو مجرته وحنا دن أقو جرى النبضي نلول مجرته رنت مركي لقاها اللواء سماكنو هذا مدحوينها وحالتها وحو آذا يا شر بوحو آذا يا ماشا لدهو نيروبي وحالقيا بقى إنا إسعار كان أساقي أهورو كينياتا مركا إسعار كيسان جالا مدحويني adiga oo jaadka joojiyay hadaa Nairobi u duusho leverage haysataa waxa ku gorgortami kartaa haysataa waxa dhihi kartaa oo aan leedahay qaadka waxaan u joojiyay muxuu ahaa cabsi aan ka qabno caafimaadka dadka ka qabno sama girno awoodna way ku noqonaysaa aan ku gorgortanto ilaa ninkan qaadki iyo diyaaradihii ba ka joojisay dhaqaale badan oo ka soo galaya laga joojiyay soo markii miiska la isugu imaado tuhun iyo awood baa kugu jirto oo dadka ka filanayaan oo leeyahay wallahi madaxweynaha uu ka joojiyay qaadki laakiin hadda tan waxa moodaa inay dawladda diidan tahay inay dhigaha dadka ka fureysato dantay kaleeda ma garanay waa ogahay waa dareemayna qaadka dad badan ku nool dad badan ka ganacsado kuwa diyaarada ka ganacsado oo lacag ka sameeyo maxaa dhigi jiray dad baa soo raro dad baa ilmahooda ka biisho dad laakiin sidee meeshan dib kalena uu ka taagan yahay سما قرنو صاحب مايا جوجي صاحب تاس سو marka maya hadda ma bilaabeyna laakiin si kacdoonka uu ku jira hadeertan dad badan ka wada hadlayaan sama qar in Kenya laga helay viruski waa la ogyahay in Ethiopia viruska laga helay waa la ogyahay soo marka dawladda waxa la rabay anagii Kenya xoogaa khilaafaadna uu noo dhaxaya in marka dawladda waxa la rabay ay ka faa'iideysato oo ay tiraahdo okay maadaama meeshan xoogaa ku gacan sareyso uga faa'iideyso سمعكنو لكن سي إني اللي اسمق لي واي ودولة دجاها فريستو أي تراهدو محا وحبا نجم جلين هاسكقل القيليان سو مركز دم وحا إيمانا إني دتك كلا جبان سمعكنو أنا إيه إن بدنو إتاجرسن أو دولة تاجرسن إيه إن بدنو إسكو فكر أنا هاي قاد كان وكسر جدنا دولة أول هرب إني الدبلوماسية كوش قيستو إني فرسمة كلا أو لإماتو وحصرا لكن هدرتان دولة وحي وشكتها سعادت كذا يدتك كانيو إيه ملحظة كانيو إن حنون وطن كجرو حنون كانوا وسوا جاري أفريقيا حنون كانوا واحد لو كلا قاضي فيروس وحنا تتابش يو سنكين يأفكيني عنتنا تابنا ليه واقورا يدين تسا هدفان أو كسورية واكس سمع كرنو سمع كرنو واكنا لقوشة جاي بالكي سنكين هكو تابنا جامعينا سمع كرنو avoid touching your eyes nose and mouth إنا وجهي هذه أوكي مركب قاد مركب العنا على صاحر حلا على صاد الضوء يستقدم سماكرنو معقول ما نقول مركا قادك وحو كميديا وحيالا دقسو فافينا حنون كان سو marka in la joojiyo xaq ay lagu leeyahay umaleynaya soo marka dawladda inay dhageysato way fiican tahay dadku waxay u sheegayaan especially taageerayaasheedii oo waqti badan soo taageerayeen oo ka soo bixiyay culayski badnaaha ay ka soo fujiyeen wax badan la soo qabteen inayna maqasho way fiican tahay wayna maqli weyday samahano meel ay nagu maqlaysaa jirto social media han markina waa la isku maqlaa سماكرنو مركي سو غلان دad badan oo aniga ila mid oo dawladda taageeri jir oo dawladda kacdoon ku wado oo madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo wasiirada weerarayaan markay soo galaan dawladda way dhageysan doontaa because of mucaaradkeedii bay laba jibaartay سماكرنو mucaaradkeedii bay laba jibaartay mucaarad badan oo banaanka taagan oo bahalki ah way waa la wada ogyahay laakiin dawladda waxa aan leenahay jaadka u jooji waxa waay number 1 ina horta gacanta sare aan yeelano oo ilaan dawladda Kenya waxa ka soo galaa la almost muxuu ahaa diyaaradaha Kenya oo qaadka keena lacag kaash la laabtaan lacagta kaashka oo la laabtaan waxa lagu qiyaasaa ilaa $300,000 ilaa $400,000 $400,000 ilaa $300,000 waa wax lagu gorgortami karo سماكرنو وإنكم دقالة موقظة واي أو دتك لو شيء كرو سماك لكن الدولة مركي أي إنكم كاس أي دولة كان يقولوا جرجرتمي ويدو ولي بقى أجنها إن أنا كان هذا الإباتة كلها ستي واحد أسكوه هنا وحاول أرجنا واحد يودن لا ده أو كلا يكون جرجرتمي سماك جران كرنو
haddii awal hore ay dhahaysay muxuu ahaa diblomaasinimadan iyo afaarahan iyo kor aan kala dagaalamayna laakiin hoos-hoosey ma imaanayno hadda hoos-hoosey xanuunkaanaa keenay inuu imaato ma fahanti hoos-hoosey xanuunkan baa keenay in la isku imaado soo marka dowladda intii aan loo soo qalab qaadanin intii aanan dad badan lagu kicinin intii taageero badan uusan ka laabanin intii dad badan oo muxuu ahaa kacdoon ay la imaanin waxaa u fiican inay maqasho dadka dad badan waxay soo jeedinayaan warqaadkan waxa laga qabto warqaadkan waxa laga qabto war dowladda Kenya dhan way nagala dagaalaysaa dhan dad bay hub nagu soo siinaysaa dhan maamul goboleed bay taageersan tahay dhan xataa United Nations way nagala dagaaloosaa eedii soo dhaw arrinkaas ayaa rabaa inaan wax ku darsado isoo qabo eedul isma soo qaban karaa laakiin waxa soo qori kartaa hadda ay soo wacdana soo baalki maxaa la dhahay baalkana damay hoos ku soo qor caado waa akhrinaya hadda soo qortid saaxiib arrinka dowladda ay nooga duntay waa tii Maxamed Siyaad Barre markuu xiray u dambeyn qaadka dil xir dowladda ma dumay saaxiib arrinka dowladda ayaa nooga duntay waa tii Maxamed Siyaad Barre markuu xiray ayaa u dambeysay kala dambeyntii iyo sharciisa dee aniga ma garan karaayo qaadka wuxuu u haaya qaadka dadka cuno wax yar waa I mean waxa ka badan dadka aan cunin sama garno inta saaqidiinta oo qaadka cunta ani saaqid baa aqaan hadda ka hor anagoo isbitaal ka shaqeynayno habeenkii night-an geli jirnay habeenkii shaqo soo geli jiray 7 habeen oo habeenkii shaqo soo geli jiray jirto soo marka waa isgarab seexan jirnay niman dhalinyaro badan ahayn habeenkii markaan shaqada soo galno waa la iswada garab seexan jiray marka inta oo daawada dambe la qaybinayo niska dambe la soo kacay soo marka qaarkood way qayilaan oo jaadka cunaan ani ma qayil jirin waligeena ma qayilin waalidkeena ma qayilin waligay guri laga qayilaana ma arkin soo marka xariif iyo garab jiif habeenkaas muusa qayilna umaleena waan jiifay waa isgarab jiifnay waa labadeena maxaa la dhahay joodari dhulka ay noo yaaleen saan oo kale isku garab jiifnay hal mar uu cirku u booday markaas igu soo dul dhacay geb aniga marka waa booday anigana waxaa is dhahay maxaa idin ku dhacay oo maxaa idin soo galay soo markuu igu soo kor dhacay oo igu ku dhacay anigina booday oo aan kacay oo wuxuu igu dhahay muxuu ahaa yaan yura dabada iga gashay soo qabta anigina xadin yaan yur dhan dabada iga gashay kulaha war yaan yura dabada iga gashay war yaan yura dabada iga gashay wuu salalsan yahay isaga dhanba maxaa la dhahaa wuu salalay wuu boodaya anagina hurdadii iga nixiyay muxuu sheegayaan dhahay yaan yura dabada iga gashay markii dambe dadka weydiiyay waxaan maxaa waayaan dhahay waxaan ka hadlay waxa lagu dhahay dubaab baa la dhahay dubaab dadka oo jaadka cuna markino yuu ku dhaca wax noocaas oo kala ah wax loo dul qaadan kara ma ani ma garanay oo dee qof noocaas oo kale wax uu noqonay soo garan qof yaan yur daba ka gelays xagee lagu arkay adduunka inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un ilaahay ka magan galnay ma fahanti marka waxa waaye waxa qofka noocaas oo kala in aniga ma qaba in la muxuu ahaa jaadka malihi hal wada jooji laakiin dawladda Kenya markino matrada eedo waxaan qabaa xuduudaha furan in ciidan la geeyo taas ayaa muhiim ah diyaarad jidadka badan ayaa inagu furan ciidan iyo bara control in xuduudaha laga hirgelisho ayaa muhiim ah ma eedo waa kula qabaa aniga naftirkeyga xuduudaha in la geeyo ciidan sida hadda doolow loo geeyay sida beled xaawar loo geeyay magaalooyinka xuduudka ku teedsan waxaan u maleynayaa ceelwaaq magaalo la dhaho diif magaalo la dhaho muxuu ahaa dhobley I think Hosingomia amume all the way down Kulbiyo badhaadhe xuduudka Kenya ala leenahay waay soo marka intaas in la geeyo way fiicnaan lahayd ciidan laakiinse maamul goboleedka Jubbaland haddeertan joogo ilaa iyo isbedel uu ku imaado waxaan u maleynayaa xuduudahaas ciidan lama geen karo sama garno waa in marka maamul goboleedkan hadda Jubbaland iyo dawladda Kenya isku koraran in la kala fujiyo waay hadda labadooda markino sidii waxay isugu koraran yihiin baalki sama gar soo marka labadooda ay kala fuqaan markino baa u maleynayaa xuduudaas in la soo xiri karo arano xuduudaha kale oo dhanka Ethiopia maxaa la dhahaa feerfeer iyo balanballe iyo goldogob iyo dhankaas ma aqaan in ciidamo la geeyay laakiinse kuwan hadda aan garanayo koonfurta Soomaaliya beled xaawo ceelwaaq muxuu ahaa magaalada dhaho Giriley iyo Diif iyo muxuu ahaa Dhobley dhanka waan garanaa aniga xuduudahan markii aan xamar ka qaxnay meelihii aan tagnay oo aan joognay ahayd banka daardaar iyo banka jiiro iyo waxaan dhan waan garanayaa yaranteedii meelaha arkay waay
marka xuduudahaas maxaa umaleynaya edo inaanan ciidan hadeertaan ku filan aan loo heynin oo la geeyo ilaa iyo la helo maxaa la dhahaa bahalkii arrinta jubbaland ay iska bedesho oo wax iska bedesho haddii arrinta jubbaland wax iska bedesho waa laga yaabaa in wax laga bedelo cabdi cali dalmar muxuu dhahay wacdi wadani sax laakiin ma ogid waxaan u haayo bahalkaas wax garan kara dad cuna iyo inta ka shaqayso dawladda ayaa garan karta no waan dareemaya waan fahansanahay qaadka dad badan yaa maxaa la dhahaa ku nool diyaaradda la soo saara waa lacag kuwa soo rasaarta waa lacag kuwa garoonka ka soo qaado oo muxuu ahaa oo usoo dego kuwa loo sii qeybiyo kuwa kaloo sii qeybiyo of course dhaqaalo badanaa kasoo gala dadka xanuunku intaas ayuu kaga imaanayaa dayuuradaha jaadka waa laga badan yahay xanuunka intaas oo meel ayuu kaga imaanaya xuduudada yes uu ka imaanaya xanuunku kasoo galaya laakiinse diyaaradaha haddatan kuwa qaadka wado dee ayagana wax ciyaara maa edo marka diyaaradaha dii la joojiyo xataa qayb kamida waay laakiin dawladda in badan bay xukuntaa waddanka oo ay garanaysaa sama garano been badanaa baadiye ku dhalatay ee xamar ha sheeganin cabdiqaadir axmed dacad baadiyaa ku dhalato dhahay baadiye saxa xumaan miya baadiye dadka dhanaa ka imaadeen baadiyina waxaa waaye oo qof walba uu soo arka waaye inkastoo anagaana soo arkin oo aanan baadiye arkin laakiin baadiye wax fiican waaye wax laga faana maahan haddaa umalanaysa wax laga faana aabayaasheen iyo hooyooyinkeena ka yimaadeen annagu laakiin maana arkin marka ani waxaa aaminsanahay qaadka inuu yahay arrin weyn oo dawladda kenya lagula dagaali karo oo baalki ah laakiin waa run dhaqaalo badanaa kasoo gala soomaaliya dad badanaa ku nool waa in dadkaas fursado loo abuuro fursado shaqa in loo sameeyo waaye 100,000 oo ganacsato ah oo soomaali ayaa joogto iyo 2 milyan oo qaxooti ah dalkaas haddii la soo saaro khasaare ayaa dawladda iyo dadka ugu jira no waa runta dad khasaare badanaa ku jiro laakiinse waxaa ogaataa ganacsatada oo 2 milyan oo degan meesha la dhaho muxuu ahaa Nairobi ayagaa taxi bixiyaan waxay bixiyaan waa taxi bear cashuura bixiyaan dawladda Kenya hal mar oo ay xawaaladaha Soomaaliya ay lacagta kala bixeen bangiga dhexe ee Kenya waa la ogaa wixii ka dhacay lacagta laga soo diray dibadda iyo lacagaha dadka ganacsiga ah oo xawaaladaha la dhigto hal mar oo ay waagi doorashooyinka wax ka dhaceen yaa bangiga KCB ma la dhahaa Kenya Bank balki yaa hal mar xawaaladiyo dhan lacagta kala baxay oo hal mar ay faaruqday eber noqotay soo marka waxa ogaanaysa qofkii og dawladda Kenya dhaqaalaheeda waxa 25% ilaa 30 ama 40 la dhihi karaa waxa ka ganacsatada Soomaalida ah Soomaaliya oo uu qaadka ku jiro oo kuwa Nairobi isli ku jiraan oo dadka lacagaha loo diro oo Nairobi degan oo eheladooda u diraan waxa soo dhan ganacsigooda ku jiro soo marka dawladda Kenya wax badan ay Soomaaliya ku qabtaa hadii dawladda Soomaaliya ay mid awood la ahaan lahayd oo mid si toos u la xifaaltamaysa Kenya ay ahaan lahayd Kenya wax badan yaa jilbaha dhulka loo dhigi lahaa waa anisa aaminsanahay Soomaaliya Kenya dad badan oo Soomaaliya ku nool oo Soomaaliya ka qaxay ah oo degan magaalooyinkeeda oo dhaqaale loo diro oo ku haystaan dad badan ganacsi ku haysto hanti badan oo ka imaato dekedaha Soomaaliya oo raqiis uga soo gasho yaa dalka Kenya gasho Soomaaliya oo la geliya soo markii loo fiiriyo walaashi xafsi soo dhaw alaykum salaam warahmatullahi wabarakatuh dawladda Kenya markii loo fiiriyo annaga iyo ayaga waxa faa'iido lagu qabaa annaga faa'iidana lagu qabaa sababtana loogu qaban waa idin sheegaya in badan oo adinka kamida miina soo marin Kenya kuma ina soo noolaanin miina soo arkin Soomaaliya ganacsigeeda ugu badnaa oo wadankeeda ay ku dhisi lahayd magaalada Nairobi ay geliyeen bal fiiri guryaha Cabdiwali Cali Gaasa u dambeeyay lacagtii uu naga dhacay iyo hantidii uu naga dhacay guryo uga dhistay meesha la dhaho Nairobi guryo dabaqyo ah oo dhaadheer oo lagu sheegayo lagu dhahay guryahan Gaasa iska leh yuu ka dhistay guryahaas cashuura laga qaadaa guryahaas maxaa la jiray hanti badan ka soo gasho marka maxaa la dhahay inii marka waxa waaye oo ayaga nagu qaban faa'iido badan marka dawladda Soomaaliya hadii awood ay lahaan lahayd oo si toos ah oo dawladda Kenya loola dagaalami lahaa waxa aaminsanahay dawladda Soomaaliya ku adkaan lahayd dhaqaalaha iyo maxaa la jiray iyo siyaasadda iyo wax walbaba xilli qaadka lama joogo waa in joojiyaan nolosha ka muhiimsan soo marka ani waxaan qabaa inaan Kenya hadeertaan iyada dandaansi nagu hayso xuduudka ayada ciidamada keento ninka la dhaho janan iyo ciidamadan la leeyahay muxuu ahaa dhankaas la soo keenaa ayada kan hadda maanta u dambeysay diyaaradaheeda dagaalka yaa dul maraayay maxaa la dhahaa magaalada balad xaawo yaa u ogolaaday inay soo gasho hawadeena waxay og tahay diyaarad kale oo la soo kicinaayo ma laha Soomaaliya
diyaarad kale oo la soo kicinayo oo diyaaradan ka hor imaanaysa ma lahan soo marka magaalooyinkii qalqal gelinaysa intay u soo dhawaato oo magaalooyinka u soo dhawaato iyo dadka woof ku maraysa adi bal diyaarad dagaal oo wadan kale ah oo dhibaato idin ka dhaxaysa oo idin kor martay seeway ya micnaheedu waxay tahay waa idin duqeyn rabtaa Soomaano so waxyaalaha ay sameynaysa kamid tahay oo ay hadda dadka ka cabanayeen oo ay dhahayeen diyaaradihii dagaalka yaa waxay dul marayaan magaalooyinka muxuu ahaa Soomaalida sida Ceelwaaq sida Beled Xaawo ay dul marayaan dadweynihii iyo xoolihii wixii dhan ay didinayaan soo marka dawladda Soomaaliya waxaas inay ka hadasho xaq waay 10 bil kadib muxuu ahaa Saara 10 bil kadib ma sheeganaysaan waqtiga waa dhamaaday gabadhan waxay dhahday soo qortaa idin aqrina dhageysta waxaa la dhahaa Saara Xasan 10 bil kadib ay tiraahday habar gidir ma sheeganaysaan waqtiga waa idinka dhamaaday you know adiga oo gabar ah adigoo social media ku jiro ina qabiil ka sheekeyso habar gidir ma sheeganaysaan dawladba you know waxyaalaha waxa waaye dadka inay ka faanaan ay ku fiican tahay ani kolba intaan soo fadhiisto social media soo galo qabiilkayga ma buunboonin karo waayo anigoo heli kara dawladnimada Soomaalinimada qarannimada inaan dadka iska dhicin inaan buunbuuni heli karo ya adigoo gabar ah inaa marka qabiil ka sheekeynayso reer hebel ma sheeganaysaan mana noqonaysaan ani waxaan u arkaa waxaas daciifnimo waay sama garno qofka bin aadanka waxa fiican inuu ka koro qabiil hadda maanta oo dhan haddaan sheekeynayo qabiilkayga ku soo daro ma jecli sababta ay tahay wax faa'iido uu keenayo ma jirto wax laga faa'iidayo ma haddaan xayeysiyo waxba kuma taraayo haddaan wax ka dhigo wuxuusan ahayn ma noqonayo hadda soo marka maxaa fiican waxa guud kore in laga hadlo dawladnimada qarannimada Soomaalinimada ka fiican inaan reer hebel ka hadalno reer hebel 30 sano meeshaana dhigay ya reer ka adkaaday waa la waayay haddii reer laga adkaanayo reerkii xukunka hayay oo dadka dhan ay la dagaaleen oo la dhahayay muslim iyo reer hebel laga adkaan lahaa fiirso ani meelaha aan ku qiyaas qaato waay maalintii xamar aan ka bixinay waan xasuustaa magaalada xaafadda Madiina degneen xeradana la dejiyay waxa la dhahaa xerada Jaalasiyaad sama garno waa cabaara joognay markii dagaalkii wixii uu joogsan waayay haddana waana laga waday shalaamboodana la geeyay shalaambood dagaalkii iyo balaayada ka daba haddana waana laga waday waxaana la geeyay meel dhaho Beledul Krim haddana dhibka ka daba imaad waana laga waday xuduudka Kenya iyo Soomaaliya la geeyay fiirso haddii marka qabiil wax taraay maxaa laga faa'iiday wax laga faa'iiday male haddii marka qabiil ka adkaanayo qabiil u awood sheegan kara qabiil kala sheegan karo ama qabiil kale waxa la ani aaminsanahay kuwii markaas oo la dhahayeen xukunka ay heestaan dadka ay laayaan iyo baalki iyagii laga adkaan lahaa oo la tirtiri lahaa oo waxba noqon lahayn oo dhulka lagu dari lahaa Soomaaliya iyagii maanta joogan haddana Soomaaliya soo marka aniga waxyaalaha aan ku diiday waa in qabyaalada laga sheekeeyo social media intii la soo galo in reer hebel la buunbuuniyo waxa ka fiican Soomaalinimada waxa ka fiican waxa isku kaana soo dhaweynayo waxa ka fiican muxuu ahaa waxa naga wada dhaxeeyo waxa ka fiican inaan dawladdanada difaacno oo dawladaha dariska difaacno waxa ka fiican maamul goboleedka la adeegsanayo oo dawladaha kala adeegsanayeen inaan aan dawladda ka difaacno laakiin marka ay ugu tiraado inta adoo gabar inta soo gasho markii 10kii waqtigiina u dhamaado reer hebel ma sheeganaysaan oo reerkiina anide ma garanay sama garno hadii la weydiiyana waxa dib ku qabi doona ninka ku guursado sama garno ninka ku guursado waxa dhii doontaa u maleynaya niyo reerka naga sheego hadiinan isku reer ahayn u maleynaya soo marka aan waxaan ku dhilaa walaashi qabiilka ka kor qabiilka wax faa'iido ma keenayo waa dib lu ku celinaya gadaal lu ku celinaya ma ogi wax faa'iido uu soo wado oo Ilaahay abuurtay ma jirto waxyaalaha ay dadka inay ka waantoobaan ay kamid tahay 30 sano oo la soo dhaafay 30 sano wax yar ma ahan fiiri qarniga waa 100 sano nus qarniga waa 50 sano rubac qarnigana waa 25 fiirsaya qarniga waa 100 sano qarni waay 50 sano waa nus qarni rubac qarnina waa 25 sano rubac qarni iyo 5 sano oo lagu daray baan qabiil isku haysanay oo adduunka aan uga harnay oo dalalkii kala nooga tageen hadaa marka maanta adoo gabar la soo taagan tahay reer hebel ma sheeganaya ya oo lagu soo jiray rubac qarni iyo ka badan ya waa ayaan daro so ma garan karaay waxa ka faa'iideysid waxa uu keeni waayeen maanta ma keenayo Soomaaliya so marka cid walba kuwa maanta Soomaali ugu yar oo minority la dhahayo iyo kuwa majority la dhahayo cid maanta adoon u ah oo gumeysata ma jirto cid maanta u adoon oo cid kala leh oo gumaysato oo dhahda reerkan xariga noogu jiro anaga iskale ma jirto sama garno soo marka waxa fiican hadaa wax laga sheekeenayo in laga sheekeeyo waxa dadka isugu soo dhaweynaa la isugu iman karo qabyaaladu waa waxa maan doorka dalkeena aqliga ma lahan soo marka aniga waxaan jeclahay ina qabiilkayga aan fanfaaniyo ina sheego ina wax ka dhigo waxa ka fiican inta aniga 100,000 iyo 200,000 oo isku jifa aan nahay aan ka sheekeen lahaa ya
tobanka milyan iyo 15 milyan ilaa 20 milyan oo Soomaalida ma ka shakeeyo iyo qarannimadooda dawladnimadooda sida horumarku marayaan soo marka qabyaalada wax fiican maahan dadka waa laga waanin karaa inaan laga waanin karin waxa ku ogaanaysa dawladdan hadda jirto markii ay sameysmaysay iyo markii oo la dhiibay qalbi dhagax waxa soo gaaray damage weyn maxaa la dhahaa dhibaato weyn soo gaartay qalbi dhagax dhiibistiisii dawladdan hadda jirto waxay salka dhulka soo taaban gaartay way degi gaartay waana sidii loogu talagalay ahayd in lagu fashiliyaa la rabay ma fahanti beenlo wallahi qabiilka adiga ibare waa fi candani waa dareerkiina taqaanido aan ku baray ina tahay ciyaalka u bixi kacaankan ka baqaayba ciyaal badan oo waxa jiraan u bixi kacaanka waa la dhaho oo dawladda kacaanka ay ka burburtay oo ay korin jirtay marka kuwii hadaadan ahayn waa fiican tahay soo marka waxa dhacda marka in dawladda marka maxaa u soo baxay oo banaanka imaadeen dad inay dawladnimada iyo inay garab istaagaan damceen ayada oo u dhamaan lahayd hadiinan heli lahayn taageero oo dad ah dawladda waxa soo celiyay hadda ugu badan dawladda Soomaaliya ay la soo laabatay oo taageero badan u heshay waxa u istaageen dad ama dhalinyaraha ahaadaan qabiilka rabaan ahaadaan dadkaas u istaago dadka inay ka dhaadhiciyaan difaacaan u soo kacaan dawladdii waatan maanta waa arkaysan marqaatiya ka tihiin kulligiin meesha ay marayso waxbay qabatay deemay cafisay xabsiyaal dadka soo deysay ciidan ay mushaarsiisa ciidan ay tababartay xuduuday tagtay wax badan ay qabataa hadii marka maalintaas aan la heli lahayn dad u soo baxa oo difaaco oo u soo kaca oo ka hadlo oo wax aan la heli lahayn ma jiri lahayn waxaan ka wadaa qabiilka hadeertaan laga sheekeenayo hadii la helo dad dhalinyaro social media soo galaan oo sidii dawladda loo garab istaagay oo kale u soo galaan oo ay dadka la hadlaan waxa aaminsanahay in dawladda Soomaaliya dadka qabiilka laga waanin karayo oo wax laga qaban karo Soomaaliya marka waxa fiican marka in dadka la helo dad dawladnimada ku waaninayaan iyo qarannimada iyo muxuu ahaa midnimada iyo baalki aniga hadeertaan dawladda waa la socda oo ayada waan taageersanahay laakiinse kuma taageersanin maamul goboleed laakiin way imaan doontaa waqti ay imaadaan kuwa badan oo aniga ila mid ah oo aaminsan 18 gobol oo kala madax banaan oo dawlad federaal ah leh oo magaalada Muqdisho dawladda federaal ka degan tahay sida wadamada adduunka hadda aan joogno kale sameeyno hadda waxa dhisan Jubbaland waa 3 gobol Jubbada Hoose Jubbada Dhexe iyo Gedo waa isku dul saarnaanaya maxaa keenayo waa habna loogu talagalay oo lagu bahdilayay oo la rabay inaan isku dagaalno oo inaan is heesano oo qabiil isku heesano oo aan weligeen aanan kala bixin laakiin si xaq ma ahan maxaa la dhahaa gobol kasta oo Soomaaliya kamid oo 18 gobol waa inuu madax banaan yahay waa inuu governorkiisa leeyahay waa inuu housekiisa leeyahay waa inuu senatorkiisa leeyahay waa inuu mayorkiisa leeyahay waa in iyaga sida wadamada adduunka ay noqdaan waa laakiin galmudug waa lagu dhahayaa galmudug waa gobolkii galgaduud iyo half kamid mudug Puntland lagu dhahayaa waa nugaal waa bari waa half kamid mudug waa dadka dhan la isku qabanaya soo marka meeshaas micnaheedu waxa waay inaanan kala bixin oo madaxa isku la jirno oo reer hebel isku laayo waana sheekadii ay keeneen oo ka dambeeyeen nimankii Tigreega ahaa iyo reer galbeedka qayb kamid ah iyo wadamada dariska iyo igad waay dadka qaar kood ma fahansan waxay u maleynayaan saan inay fiican tahay سمعنا سان واحد في عن ماهن ودمد أدونك سيدا ورقمان أو فدرالك وإنا لإيمانا سديد إيتوانك قبل وإنا سديد إيتوان قبل أو كلام مدح بنايين أو إدوال بابو قوني سحكونتو أن أيان حسن محيطر أبو النبادي نولال مياكا تكتبريها والقواي مايا أيان النبادي نولال مكتجيني وانون السنة يعدد بدن بعصابح أو دولة تاجر وايجو هوري أنا يدور حبائهن وحي تاجر يجري دولة لكن هذا كمنان oo anaga aan wacyigelinay oo dhiirigelinay oo aan maxalli jiray oo aan tashkiilinay oo anaga aan wax ka dhaadhicinay ya hadda live ka soo galaan iyagiya aan dadka wax u sheegaan soo marka anaga dad aan ku nasanaa helnay marka anigoo kale hadda waa iska nastaa marmar baa soo gala oo aan ka sheekeeya oo aan dawladda taageera laakiin inta badan waxa bateen dadka kale oo soo tashkiilinay oo nagu daydeen oo naga daba imaadeen weebana dhaafeen ba hadeertan soo ma garno marka waan joogaa laakiin dawladda waan taageeraa marka maxaan ka wadaa inaan dawladda ka dhaadhicino iyo dalkeena iyo madaxdeena waaye dawladda Soomaaliya waxay federaal ku noqonaysaa 18 gobol 18 state-ki ahayd oo dalka markuu burburayay ahayd ee ku noqonaysa gobolka Banaadir waa dawlad waa meesha maamulka oo dawladda federaalka laga xukumi doono oo senadka iyo houseka iyo speakerka iyo madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha ay joogaan laakiin 18 gobol oo kale waa idinay kala madax banaan yihiin sinaba aniga waan ka soo horjeedaa totally inii maamul goboleed saddex la isugu qabto in la dhaho Hirshabeelle waxa la isku dhahaa Shabeelle iyo maxaa la dhahaa iyo Hiiraan in la dhaho galmudug waxa la isku dhahaa
galgaduud iyo haaf muduga in la dhaho puntland waxaa la isku dhahaa nugaal iyo bari iyo haaf muduga iyo sool iyo sanaag filinkaas aniga kuwa kuma jiro dhalinyaro badan oo aniga ila midana way taageersan yihiin laakiin haddeertaan maadaama dawladda ay tabar yar tahay inaan la soo shirtagno oo aan ma rabno oo dalka lagu dumiyo laakiinse waxaa naga go-an hadduu ilaahay idmo in dalkan uu noqdo dawlad federaala 18 gobol oo kala madax bannaan oo dawladda federaalka banaadir degan tahay oo iyadana statekeeda ay leedahay ama mayor ha loo soo magacaabo ama sida DC oo kale hala dhaho maraan Washington DC tiga waxaan arkay baabuurtooda markino number plateska maxaa la dhahaa number plate af Soomaali maxaa lagu dhahaa taarikada ku dhagan gaariga yaa waxaa ku qoran maxaa la dhahaa hadala ugu qornaa taxation without representation waxa ugu qoran fiirsiya dadkaas sida banaadir oo kale ay u dulman yihiin samakirno waxa ku qorteen marka taxiga bahasha maxaa taarikada taxation without representation waxaana laga qaadaa canshuur annaga oo nala matelin dheheen waa runtood maxaa u maleynayaa malahan u maleynayaa wax la dhaho muxuu ahaa senate iyo house iyo malahan u maleynaa soo marka sidaas oo kale ina u kala madax banaanaano way dawladda federaalka muqdisho ha deganaato madaxdeeda ha joogto laakiinse waa in la helaa 18 gobol oo aan saddex isugu leexsaneen oo aan qoortil isku gelinin oo dadkooda isdagaalayo oo aan ishaysanin hadda aniga magaalada aan deganahay state aan deganahay waxa ku noolaa la dhahaa almost 7 million 7 million ku dhawaad samagarno ku nool waxa jira state inta naga jiro oo noo dhow oo Wyoming la dhaho waxa ku nool 400,000 bes 400,000 bes ku nool waxa arkaysid isku markii la fiiriyo awoodda oo dawladda federaalka waa isku senator ka imaado isku house representative dhaqaalaha waxay ku kala badanayaan dadka ku nool bes samagar soo marka laakiin haddeertan waxa dawladda Soomaaliya lagu haayo dadka madaxa la isku galiyay gobolada madaxa la isku galiyay halka madaxweyne oo la sameeyay halka governor oo madaxa la isku galiyay arrin ka soconaysa ma ahan laakiin maanta ma ka hadli karno maanta waqtiga aan ka hadli lahayn ma joogno waa dawladda inay awood yeelato waa in dawladda dalka doorashooyin loo sameeyo waxa imaan doonta referendum in la sameeyo referendum waxa la dhaho markino in la sameeyo imaan doonto oo la dhaho dadku maxay rabaan samagarno inay dadka soo dooranayaan weli waxa aaminsana inay jiraan gobollo waaweyn oo la kala bari karo oo laga dhigi karo weli laba gobol sida gobolka Hiiraan oo kale waaweyn yahay samagarno gobolka bari la dhaho waaweyn yahay gobolka Gada la dhaho waaweyn yahay hadii dadka ay gartaan inay kala baxaan way la isugu celinaa samagarno Hiiraan ka galbeed iyo Hiiraan ka waqooyi North Dakota South Dakota wax ma qashaan amaleenaya samagarno maxaa la isku keenaya gobolka Gado waa gobol balaaran oo weyn oo maxaa la dhahaa bahalkii le haloo kala bixiyo daawo iyo Gado samagarno 7 degmo 3 degmo 6 degmo Hiiraan sidoo kale haloo kala qaado dadkii madax maxaa isugu gelinaa cid rabta inay si kala baxdo dawladda federaalka ilaa taageersanaadaan halkaas ha laga xukumo cid walbana canshuurteeda iyo wixii ay bixiso baa lagu soo marka marka dadka taaganaan ku jira dawladda Soomaaliya sida hadda ay tahay oo maamul goboleedyada qaabka qabiilka u dhisan oo qabiilada kala dusha ka fuulsan in la joojiyo waa in laga hor imaado waa samagarno hadda waa la isku duldulman yahay dad baa waxay sheegtaan laandheere dad baa waxay sheegtaan dhexdhexaad dad waxay sheegtaan baalki kuwa waxa la dhahaa laangaab waxa soo dhan maxaba keenayaba aakhirka doorasho lagu kala imaanaya isaga lagu kala baxaya laakiin muhiimadda anaga aan u dalena waxa waay 18 gobol ee Soomaaliya oo kala madax bannaan oo dawladda federaalka hoos taga oo governor kala xukumo uusan jirin hadda gobolka Gado hadii loo sameeyo governor oo gobolka Jubbada Dhexana governor loo sameeyo waxa xukumayo madaxweynaha hadda tan jooga gobolka Kismaayo ninkaas isku haysta waxda asaga maamul wuxuu magacaabayo gudoomiye gobolba yaa u dirsaday waa waxba same thing ninka jooga Southwest wuxuu xukumaa 3 maamul samaano Bay iyo Bakool iyo Shabeelle mid ah I don't know Shabeellada waa sameeyaa mise Shabeellada dhexe wuxuu soo magacaabaya gudoomiyeyaal oo shabeellooyinka iyo bahalka kala waxa soo dhan dulmi waa dusha iskaga saaray soo marka hadii ilaahay idmo xariijinaya in la helo sida aan doonayno haduu rabbi idno marka nomo hawiye dadka qaar kood iska xanuunsiin hawiye muxuu ku dhimay hawiye dad badan oo tirada ka badan waaye 5 qof 6 qof ka xunay dadka qaar qof walba waxbuu iska aaminsan yahay soo marka maxaa la saaxiibayaal hadii ilaahay idmo dawladda horta aan taageerno aan dhisano markii wax la dhisto markino oo la wanaajiyo baa wax la kala qaybsan karaa oo wax wanaagsan loo bedeli karaa laakiin waxaan jirin waxba ma laga soo qaadi karaa soo marka ani waxaan taaganahay muxuu ahaa aan maxaa la jiray dawladda intaan taageerno markino wax fiican aan ka soo saarnaa hadii ilaahay idmo laakiin se yaanan ku mashquulin qabyaaladana dilootay iyo waxa tigreega ay keeneen waxa maamul goboleedyadan hadirtan dawladaha dariska
dowladdanadii markay dhacday waa naloo tashtay waan kula qabaa exactly ma dad badan ay la qaba laakiin hadda ma soo baxayaan maasha Allah guuleyso nabadii nolol waa runta guuleysta mudane dad badan soo bixi doonaan oo aaminsan fikradahan 18 gobol in la kala madax baneeyo waxa la dhoo 3 gobol iyo 4 gobol iyo la isku qabanay inaysan jirin sama garno dawladda federaalka ah oo banaanka ay imaato laakiin si cidi diidan iyada u taala waxay u diidan tahay laakiin waxaan ku sheegaa dalkanaga markuu burburay cadow badan aan lahayn dawladda Itoobiya cadaway noo ahayd dawladda Kenya cadaway noo ahayd gobolka la dhahayo igad cadow noo aha jaamacadda carabta cadaway noo ahayd cid walba cadaway noo ahayd reer galbeedkana cadow noo aha waxaana looga faa'iideystay sidii dadka bini aadanka looga faa'iideysan lahaa meeshii ugu xumeedana la geeyay sama garan sidii ugu waa maxaa dhigi jiray waxaan ku matala ma garanay waa u jabnay because of dawladda Kenya dhul ay naga haysatay ilaahay mar le kuwan waxay lahayd burburi Ethiopia dhul ay naga haysatay ilaahay waxay lahayd mar burburi igad ayaga madax ka aha ayaga nala xug nugul jiray ilaahay mar dambe ay soo laabanay lahaayeen jaamacadda carabta waxay ka baqayeen dawladda Soomaaliya awoodeedii iyo waxay haday socoto shidaal inay soo saarato inay xukunto meelahan badal maray reer galbeedka sidoo kale dawladda kacaanka way ka amar diiday Mareykanka waa la ceeriyay Ruushka waa la ceeriyay Ingiriiska waa la ceeriyay cid walba waa la ceeriyay cid walba way noo cunte way noo ciil cunte sama garno marka ayadoo naloo wada ciil cunsan yahay oo ilaahay kuwan burburi la leeyahay oo ilaahay kuwan dhulka ku dar la leeyahay yaa dhulka galnay waxay noqotay in wana lagu malaaso sida dhulka markino waliga intay wax dhulka sida Moscow kale ismid ma kaaga dhacay waa lagu malaasay seetaana lagu malaasay sama gar laakiin waxaan rajaynayaa hadii ilaahay ma haddatan inaan ka soo kabanay oo aan fahmi doono meesha loo socday meesha laga socdo waxaan marka maamul goboleedka arkaysaan wadamada dariska ah reer galbeedka Tigreegi igad intaas isku tagay aan noo sameeyeen maamul goboleedka lagu sheegayo wanaagna loogu ma sameeyay waxaana loogu sameeyay inaan madax isku jirno aan kala bixin waligeen oo qabiil isku dagaalno oo aan la kala tagin oo la is heesto aan loogu talagalay marka anaka inaan kala furfurnaa loo baahan yahay waa ku soo doogsanayna waa ku soo roonaanayna waa ku soo bixinana markii aan ogaano inaan kala furfurno waay inaan dhahno waay sida aan rabno ma ahan sidan waay sida aan rabno marka dadka looga baahan yahay waxa waay dadka dhalinyarada ah dalkan wadamada reer galbeedka waxa la dhahaa way sii dumayaan sida qoraxda camal way qorax dhacday si noqonaa reer galbeedka sida Jarmalka Faransiiska Belgiumka Austria wadamo badan oo Yurub kamid ah qoraxdooda dhacday sababta keentay maxaa mid waxa isku soo haray dad waaweyn oo ka weyn ilaa da'da 55 ilaa 60 jiro wax dhalinyaro ah ma lahaba sama garno waa sababta ay u rabaan haddatan immigrantiga dadka markino qaxootiyada ku imaanaya wadankooda inay uga shaqeeyaan oo warshadahooda iyo baalki because dad dhalinyaro ah oo ka shaqeeyo waa waxyaalaha ilaahay ku manaystay maxaa marka wadamadan Afrikaanka intooda badan dadka waxa ku badan dadkooda dhalinyarada 75% hatta Soomaaliya oo kale waxa lagu qiyaasaa da'da 75% inay ka yihiin da'da 35 sano waxa waaye waa hanti ilaan waxaad haysataa xoog inta la eg iyo dad inta la eg wix kasto loo baahdo way dirdirayaan sama garno hadii maanta la dhaho wabiga hal aas hadii la dhaho way aasayaan because of dadkii tirada ka batay oo dhalinyaro xoog heeso oo hadda soo kacday oo aan odayaal ahayn way sama garno marka waxa aan rajaynayaa waxa waa dadka dhalinyarada ah oo 75% dalka ka ah inay dalkooda wax ka qaban doonaan oo ay badbaadin doonaan marka maxaa leeyahay saxabiyaalo in badan ku jiray aniga waxa la soo fadhiistay waxa waa taageerada dawladda dad badan waxay dhahayaan dad yaraan daawan wax qiimo ma laha fiidiyoga marka duubto kumanaan qof daawanayso kuwa waxa la ii sheegay YouTube-ka igiliyaan intay wax igu dul qoraan ninkan reer hebel oo dawladda u heelinay cunug noocaan kala maxaa YouTube igala doonaysaan aniga ma balihi YouTube aniga ma sameeysan waalidkay daawadaan oo ii soo sheegaan dhahan YouTube maxaa ku gili markaasaan dhaha malihi YouTube aniga mana sameeysan sabagno dadka qaar kooda shilimaad in click yar la siiyo markino ay kugu raadsanayaan intay qaadaan oo ay geeyaan YouTube-ka emails ay ku baafinayaan ay ku wareejinayaan marka waxaan ka wadaa hadii video aad duubto oo adiga danta aad leedahay ay tahay inay gaarto way gaaraysaa laakiin se adiga message-kaada iyo fariinta aad farayso dadka wax fiican ha noqoto oo dadka wax ina u sheegayso oo wax muxuu ahaa aqliga saliimka uu qaadan karo ina u sheegtaa fiican laakiin hadaa la soo fadhiisato muxuu ahaa ina ka sheekeyso xumaan iyo qabiil iyo isku dir iyo maamulka loo isbaalki qiimo ma yeelanayso kala qaybsanaanta daayo qaranka taageera tahriibka ku dhimateen qaranka taageera walaashi xafsa saas waay inay dadkan qaranka taageeraan danta ugu jirto marka maxaa leeyahay saxabiyaalo dib ma lahan dad badan iyo dad yar hadii ku daawadaan kalsooni isku qabto qofka bini aadanka waxa looga baahan yahay in isku kalsoon yahay qaar badan ay caayluuq inta isoo galaan waxay dhahaan midgaana tahay
maxay dhahaan maxay iisoo qoraan midgaan baa tahay ma dhibaan baa tahay ma reexaan baa tahay muxuu ahaa war wax oo wada ma ka buuxo ee iisoo qoraan waa yaabaa marka waxaan dhahaa niyo dadkan caqliga ka wata maxaa waaye maxaa ku kalifaa inay ku soo caayaan isma taqaanaan kuma yaqaanaan jista waxbaa taageertaa waxa aad taageertaysan ka helin maxaa keena inuu ku caayo ani qofka markii waxa uu taageera aan ka helin waa dhaleeceyn karaa wax waa ka samayn karaa laakiin kuwa luuq intay kusoo galaan iyo 100 wax oo wax midba midkii kale ka daran yahay ee kusoo dhahayaan maba looga jawaabo marka waa la ignore gareeyaa qofka markaa ignore gareyso maalin hore ninba hadal baan qoray hadalkii aan qoray ninba dhibsaday hadalkii uu dhibsaday wuu soo caay waa live facebook inay hada maleynaya wuu soo caay uma jawaabin markuu soo caay soo aflagaadeeyay luuqu iga soo wacay wuxuu dhahay ma garanay markaasaan ku dhahay ha ninkii caayaa taan markaasuu dhahay waan ku caayaha waxaan ku raday hadartaan aan ku raday waa ceesay haddana adaa isoo wacday maxaa rabtaa maxaan ka caawiyaa ninkii waa sheekaysanay markaan sheekaysanay oo wixii oo dhan aan uga sheekeeyay iyo wixii aniga dawladda aan ku taageero sida aan uga sheekeeyo ninkii wuu isbedelay hadda wuxuu kamid yahay dadka dawladda nala taageero so waxaan ka wadaa qofka adiga markaa dan leedahay waa inaad kalsooni isku qabtid sama garano boqolaal qof iyo kumanaan garanaya ani aan tashkiiliyay oo dhowr sano aan ku wadnay oo aan wax u sheegaynin laakiin haddaad kalsooni isku qabin oo aad tahay qof iska xanaaqaayo dadka markay caayaan ka xumaanayo laba qof aa ku daawanayso waa la isoo ceena waa af weyn tahay jareer baa tahay waa madowdahay who cares waxaas maba u jeediba aniga waxaan u dan leeyahay waxaa waaye in dad dawladda taageero aan helo aan ka dhaadhiciyo oon ka gado fikradda aan ka gadaay maxay tahay dawladda wanaageeda magaalada la dhaho Baraawe waxaa loo dhisay isbitaal magaalada la dhaho Baraawe waxaa loo dhisay iskuul magaalada la dhaho Baraawe waxaa loo dhisay garoon diyaaradeed intaas dawladda ana qabatay qofka marka inta u sheegto wuu isbedelayaa war waxaan run miyaa buu dhahayaa ninkan wuxuu daldalaayo run miyaa horta magaalada Baraawe la dhaho dawladda Soomaaliya iskuul bay ka dhistay wuu baarayaa wuxuu ka arkayaa oo ka soo daawanayaa TV-ga qaranka magaalada Baraawe ma airport baa laga furay wuu daawanayaa wuxuu ka daawanayaa TV-ga qaranka magaalada Baraawe isbitaal baa laga furay MCH wuu daawanaya wuxuu ka daawanaya dadka qofka danti aalaheed waa gelinay samagano laakiin se haddaadan dul qaadanin oo aadan qofka aadan waxa aad doonaysa aadan si tartiiba oo bila xanaaqa aadan u sameeynin haddaa xanaaqda walabadiina waa xanaaqda yaa wax laga gadaa ani markii aan social media soo galaayo oo aan inaan wax sheega rabo waxbaan beecinaya waxa aan beecinaya waa dawladda nabadii nolol